Wow, mashallah markaan diyaarsanay oo soo karsanay kabacdi sida wada jeedaan ay noogu soo baxday asxaabay waxyaabahan ka sameeyay sidaan u sameeyay odkacayni kala badan aad u macaanta badan waxa aragtid oo ku cuni kartaa rooti malawa canjeero wax kasta wuxuu diidaya maleh keek ay wishay lagu cuni karaa mashallah waxyaabahan ka sameeyay sida u sameeyay asxaabteeda qaaliga ah ila daawada aad ay mahadsantihiin maamaha waan iga mashquul laakiin maanta video yar odkaca ah ayaan la wadaagayaa walaalahay qaaliga ah صدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahay qaaliga ah meel baaduunka joogtaan waan salaamayaa channelka daawaneysaan waa Marisa Beauty fadlan hadoo yahay markii ku horeeyay subscribe ii saar asxaabta hore igula joogtay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin kuwa cusubna subscribe ii saar please maanta halkan waxaan ku haystaa 2 kiilo odkac ah sida u sameynayo waxyaabahan ka sameynayo walaalahay qaaliga ah ila daawada insha Allah asxaabteeda qaaliga ah wakaasa hilibkii dadka ayuu noo saaran yahay hadda biyo ayuu noo dhalay marka walaalahay qaaliga ah markuu biyahaas kursado kabacdi ayaa waxyaabihii kale oo lagu darlayo ku tarsanayna laakiin cusbada waa in lagu daraa marka hore sidaas weeyaan marka walaalahay qaaliga ah si fiican isku gilgilinaya waa hilibkana si fiican u kala baxo ayaa fiican marka walaalahay qaaliga ah marka hilibkeena biyaha kursado kadib ayaa isku soo naqanayna insha Allah sidaas ugu la socda asxaabteeda qaaliga ah hilibkii biyihii dhan wuu kursaday hadda waxba biyo ma lahan sida wada jeetaan bahal biyo haweeraatee ma lahan marka waxa loo baahan yahay hilibku inuu biyaha kursadaa kabacdi waxyaabaha ku tarsan lahayd waa inaa ku darsataa hadda masha Allah waxa ku tarsanaynaa suwageeni aan maanta waxa isticmaalayaa suwag bakeeri iyo haaf soo dhow oo suwag ayaa isticmaalayaa hadda bakeerigii waa ku shubtay walaalahay qaaliga ah waxaan kaloo ku tarsanayaa haafkii soo dhawaa oo suwagaha qof alaala wuxuu haysto ayuu isticmaali karaa suwag saliid waxa haysatid marka maanta waxaan haystaa suwag ayaa ku sameysanayaa marka hilibku waxa loo baahan yahay saliid amba suwagka waa inuu ka koreysaa amba la ekaata insha Allah miikaha amba qaantahana aan ka deenin marka sidaas ugu la socda hadda waxaan ku tarsanayaa heel soo duntay marka walaalahay qaaliga ah markuu hilibkeena soo guduud sida wada noqdo kabacdi ayuu noo diyaarsan yahay hadda cadaan waa sida wada jeedaanba marka ila daawada ila socda ayaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada daawanaysan videogan soo dhawaada جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي أمه إيه أحبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يمه إيه أحبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يمه إيه أحبك يا غلاي كيف بوصف لك شعوري صدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي كيف بوصف لك شعوري وصدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي انت صبحي انت ليلي انت أرضي مع سماي انت عطري انت حبي انت أنفاسي الله walaalahay qaaliga ah hilibkeeni kulli oo wada guduud ayuu noo noqday sida rabnay marka walaalahay qaaliga ah sida wada jeetaan markuu ku noqdo oo ku guduuto kabacdi ayaa cuni kartaa sidaas weeyaan marka walaalahay qaaliga ah dartan waa soo diyaarsanaya hilibkeeni oo noo diyaarsan yahay dabka ka daminaya ila socda insha Allah واو ما شاء الله وحكلا يونو صباحي هلكيني شاحيني مشاك صوت يارسني روتي لوعون لها هذا يوم عن بدين هاي وحديدا يا ملا هلكاني
fadkaca ah maasha Allah aragtiis ma maleyn kartid qofkii ag jooga ayaan kara karo marka walaalahayga qaaliga ah caafimaad igu cunay insha Allah waxaan igaga tegayaa guul iyo kowanimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يمه إيه أحبك يا غلاي. جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي.